بسم الله الرحمن الرحيم كسو دhowaada cashar kale waxaan maanta ka hadlayaa insha Allah neerfaha surka luqunta ama qoorta ka soo baxa hadii cilad gaarto waxyaabaha la dareemo iyo dhibaatooyinka uu keeno ciladan waa cilad aad ugu badan bulshada hadii aad isku aragtay qoorta ilaa kalxanta korkeeda ilaa garabka muruqa naaska koreeyo xuduudda gacanta ilaa gacanta oo xanuun ka dareentid mararka qaar kabaabiyo inay wax ka durayaan inay wax kaaga socsocdaan inaysan tabar lahayn inay dhaqso ku daalayso hadaa wax ku qabatid waxay tilmaamaysaa inuu culays ka hayo neerfaha surka ka soo baxayo ciladaas waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa cervical radiculopathy ama brachialgia magacayga waa Dr. Mahdi waxaa ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End xanuunkan badanaa waxaa keena laba arrimood midda koowaad waxaa waaye qoorta oo jug ka gaarta ama jimicsi si qaldan u samaysid ama qoorta aad si qaldan u jucisid ama qof kale si qaldan kuugu juciyo taasoo keeni karto in arjawda surka ku jirtay booskeeda ka baxdo taasoo cadaadis saari karta xangulaha ama neerfaha xangulaha ka soo baxay surka ku aadan dhibaatadaasna keeni kara midda labaad waxa waaye hadii aad qabtid xanuunkan loo yaqaan riixa ama tufta af Ingiriiskana lagu yiraahdo osteoarthritis kaasoo badanaa ku badan dadka waayeelada ah cudurkaas iyo cudurada la midka ah badanaa arjawda ay cunaan ay baabi'iyaan disc degeneration wax la yiraahdo ay keenaan arjawda marka ay baabi'iyaan waxa dhacda in lafihii ay isku soo dhawaadaan lafihii ay yeeshaan fiiqaasoo durayo neerfaha kadibna ciladan ayaa la isku arkaa ciladan baaritaankeedu waa in sawir la saaro surka kaasoo noqon kara raajo ama MRI scan waliba MRI scan ka aad u fiican maadaama cilada jirta ay si fiican u sheegayso iyo dhaawaca neerfaha gaaray heerka uu gaarsiisan yahay sida aad ka arki kartaan sawirkan kore arjawda ayaa booskeeda aad uga soo baxday taasoo xangulihii inay kala goyso ku sigtay cilada markay heerkan kale ay gaarto badanaa way dhaaftaa dareenka kaliya inay saameyso oo muruqihii ay u timaadaa oo gacanta waxa laga yaabaa inay awood dhigto oo qofka bilaabo inay gacanta jarayso ama waxa uu haay inay ka dhacaan uusan hayn karin xilligaas oo kale markay gaarto badanaa qalliin ayaa lagu sameeyaa laakiin sideedaba guud ahaan xanuunkan markuu bilow yahay qofka isagoon wax daawo qaadanayo iska caafimaadaa hadduu xanuunka sii hayana waxaa lagula taliyaa inuu sameeyo jimicsi qoorta loogu talagalay taasoo qofku uu si toos u fadhiisanayo kadibna qoorta uu afarta dhinac u qalloocinayo marba mid inuu hore u soo qalloociyo oo garkiisa taabsiyo meesha ka hooseysa dhunta gadaal u celiyo oo qoortiisa meesha u dambeysay geeyo kadibna dhegta uu midigta uu saaro garabka midig dhegta bidixna uu saaro garabka bidix 5 jeer inuu saas sameeyo maalintii taas waxay ku caawinaysaa in lafaha ay kala kacaan arjawdan ay booskeeda ku soo laabato way dhici kartaa qofka inuu u baahdo daawooyin in la siiyo oo isugu jiri kara kaniiniyaal oo ka caawiyo xagga neerfaha ama murqaha ama in meesha culayska uu ka haysto laftirkeeda looga duro cirbad taasoo bararka ka dejinaysa hadduu qofku isku arko cilada inay soo tarayso ama uu arkay inay tabardari gacanta ay keenayso waa muhiim inuu si dhaqso dhakhtar ula xiriiro mararka qaar waxaa dhici karto labada neerfo ee ka baxan gulaha oo midig iyo bidix kala aado in cilad ay ka saameyso oo culays ka fuulo taasoo meesha ka dareemi lahayd hal gacan kaliya cilad labada gacmood bin awood ay ka tagto ama ay ku yaraato taasoo macnaheedu ah labada neerfo inay culays ka saaran yahay marka hadayalsan hadii waxyaabaha isku aragtid ee fadlan dhakhtar la xiriir waana muhiim arintaas halkaas ayaan kaga baxay cashirkan fadlan wixii su'aalo ay qabtid qaybta commentiska ku reeb fadlan faafi ciladan bulshada aad ay ugu badan tahay dadkana ma fahansano dad badan ayaa u aaminsan inay tahay muruq oo muruq iska saar iyo muruq doogis ku mashquulsan laakiin ciladan waa cilad neerfo waana mahadsantihiin